heshiiskan Ethiopia iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhax taagan awgeed looma sameeynin waxba laga bedeli karaa hadii duruufo kala soo baxaan waa la bedeli karaa waxba lagu dari karaa waxba laga dhimi karaa isaga dhamaan la baabi'i karaa intaba waa ka suurtagal dalka Soomaaliya ana madaxweyne ka ah qof iga dambayso oo dawladda iyo magaceeda iyo sovereignty-geeda ku hadli lahayd ma jirto cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto waa la heshiinayna in la qariyana maslaxada dalkaana ku jirtay looma qarin sir iyo magaciisa ma aha dokumentigiisana official uu noqona gazetku ku soo baxa dadka Soomaaliyeedna way arki doonaan heshiiskan Ethiopia iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhax taagan awgeed looma sameeynin heshiiskan muddo hore soo socday waqtiga isku soo aaday ma ogi heshiis sanado laga soo shaqeynaya waaye heshiiska ayada quraana ma aha oo waxa dadka la qoray sida wax looga bedeli karo iyo sida dib u eegis loogu sameey karo iyo sida uu dhamaanaya kulli heshiisku dhaxadiin waxba laga bedeli karaa hadii duruufo kala soo baxaan waa la bedeli karaa waxba lagu dari karaa waxba laga dhimi karaa isaga dhamaan la baabi'i karaa intaba waa ka suurtagal Turkiya hore ayaan heshiis difaac oo argagixisada iyo la dagaalankeeda iyo dhismaha ciidanka dhulka oo aan maxaan ku raadayna oo u dhaqan galay heshiiska midka maanta ay badda iyo dhaqaalaha badda iyo difaaca badda oo ku kooban yahay madaxweynaha dalka Turkiga ka tagay ra'iisul wasaaraha iyo caa'iladiisii iyo golihiisa wasiirada iyo ay maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid ayadoo waaga Soomaaliya meelan la aadin oo la tagin ay tahay oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeen in badan oo kamid uu ka jawaabay waxay ahayd dawladda kaliya ee mucaawanada dadka Soomaaliyeed ay siinaysay dawladda Soomaaliyeed u dhiibaysay oo dheysay dadkiina adika taqaanaan meesha baahida ka jirta adika taqaanaan waa tanaan qabta waa dalka kaliya ee maraakiib isdaba socoto 20 oo tan isdaba socoto mar walba u dhiibaayay dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiibay u qaybiya dadka adika garanaysan sida loogu qaybiyo sida u kala duruufo badan yihiin waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget support ugu horeeyay dadka ugu horeeyay oo bangigeena iyo systemkeena dawladnimada lacag ku soo shubay ahay oo yiraahdo socda waxaysta aaminad qaata bangigeena dhaxal lacag geeyay aan lacag ku shubay waxaan ku raada markii amaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka dhan uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaar ah noogu soo gurmado xariye inta dalka gudihiisa ka dhisay askarteena ku tababaray saraakiisheena qaaday maxaan ku iraahday ciidankeeda inta gudaha ku tababar hadana wixii dhibaatada mar kasta jirtay dekedaan maamulkeeda dib ku qabnaa waa idin maamuleen airportkan dib ku qabnaa waa idin qabanayna magaaladan Muqdisho wasakh naga asiyaan u nadiifinay waa idin nadiifinayna gacantooda darawaliin ay baabuurta ku wada qashin ku qaadeen markan sidaas daraadeed waa dalka noocaas walaalayaal heshiiskan Ethiopia iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhax taagan awgeed looma sameeynin waxba laga bedeli karaa hadii duruufo kala soo baxaan waa la bedeli karaa waxba lagu dari karaa waxba laga dhimi karaa isaga dhamaan la baabi'i karaa intaba waa ka suurtagal dalka Soomaaliya ana madaxweyne ka ah qof iga dambayso oo dawladda iyo magaceeda iyo sovereignty-geeda ku hadli lahayd ma jirto cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto waa la heshiinayna in la qariyana maslaxada dalkaana ku jirtay looma qarin sir iyo magaciisa ma aha dokumentigiisana official uu noqona gazetku ku soo baxa dadka Soomaaliyeedna way arki doonaan heshiiskan Ethiopia iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhax taagan awgeed looma sameeynin heshiiskan muddo hore soo socday waqtiga isku soo aaday ma ogi heshiis sanado laga soo shaqeynaya waaye heshiiska ayada quraana ma aha oo waxa dadka la qoray sida wax looga bedeli karo iyo sida dib u eegis loogu sameey karo iyo sida uu dhamaanaya kulli heshiisku dhaxadiin waxba laga bedeli karaa hadii duruufo kala soo baxaan waa la bedeli karaa waxba lagu dari karaa waxba laga dhimi karaa isaga dhamaan la baabi'i karaa intaba waa ka suurtagal Turkiya hore ayaan heshiis difaac oo argagixisada iyo la dagaalankeeda iyo dhismaha ciidanka dhulka oo aan maxaan ku raadayna oo u dhaqan galay heshiiska midka maanta ay badda iyo dhaqaalaha badda iyo difaaca badda oo ku kooban yahay madaxweynaha dalka